halkani waa garoonka diyaaradaha aadan cadde oo aan doonayno saakay inaannu ka ambabaxno markaan u soconna magaalooyin ay ka mid yihiin Doobley iyo Afmadow waxaan rabaa inaan u sii socdo si aan ugu kuur galo qaabka duuliyaasha Soomaalida ee soo badanaya ay u shaqaynayaan waxaan la soconnaa in duuliyaal badan ay diyaaradaha gudaha iyo dibaddaba kaxeeyaan taasi oo aan sorooyinkii la soo dhaafay hore loo arkin sidaa daraaddeed arrintaas ayaynu ugu kuurgalaynaa waxaana jeclahay inaan hadda u ambabaxo deegaanadaasi Doobley clear to start, clear 91012, so 123, call again. Roger, clear to start 190, we'll call you next one. waa safar aynu ugu kuurgalaynay qaabka ay u shaqeeyaan duuliyaasha Soomaalida oo xilligan dambe ku soo badanaya mihnada shaqo ee wadista diyaaradaha Cismaan Cabbaas oo loo yaqaano Captain Amiin waa duuliye Soomaaliyeed oo muddo ka badan 12 sano ku dhex jiray howlahan waxaana uu ku guuleystay in uu furo garoomo yaryar oo duuliyaal badani ka baqeen in ay ku degaan waxaan ku guuleysanay in garoomo fara badan aan wadanka duulimaad rakaab ku bilawnay garoomadaas waxaa ka mid ah intaad maanta ila soo martay Doobley iyo Afmadow ay ka mid yihiin waxaa kale oo ka mid ah garoomada kale ah Gaalkacyo Hobyo Buulaburdi Jalalaqsi maxaa la dhahaa Luuq Garbahari wallahi horta lama tiri koobi karo inta garoona oo aan furnay oo aan ku guuleysanay inaan soo furno waxaa kale oo ku guuleysanay isku xirka gobolada sida koonfur galbeed camal oo aan goordhow ka bilaabnay Baydhabo Waajid Xudur Baydhabo aan ku laabano Muqdisho aan ku soo laabano oo isku xirkaas uu keenayo in dadkii horta ay helaan in ay ku socdaan caasimadoodii oo maamul goboleedka ah kadibna lagu soo xiro caasimadii Soomaaliya ee Muqdisho waxa kale oo uu dhiirigeliyay dhalinyaro haween iyo rag isugu jiray kuwaasi oo xilligan noqday duuliyaal lagu kalsoonaan karo sida Yaasmiin oo maanta duulinaysay diyaaradii aan maanta ku tagnay degmooyinka Doobley iyo Afmadow Captain Amiin hadduu ahayn diyaarad sana camal ma arki lahayn laakiin mawadid ma duulin lahayn laakiin ma arki lahayn anywhere because of him hadda I can land places I go to places dadka Soomaalida markay arkaan they are very proud of me because of him they are very proud of me now waa ku imaanayn they are very proud Yaasmiin waxa ay ahayd gabar Soomaaliyeed oo aad ugu faraxsan mihnadeeda shaqo walow ay ii sheegtay in dad badan oo Soomaali ah ay la yaab ku noqoto marka ay arkaan gabar duuliye ah very proud when they see me as Somali oo baay xiran gabar ah oo diyaarad way imaanayna ku faraxsanaan dadka markaas iyada Soomaali ahaan gabar markaa tahay pilot malakubaalaayo waxa lagu dhahaa gabar tahay sharaf maaha ma fiicno but ani interest in high school started with piloting marka abi hooyo waa u tagay hooyo adi wax yar way diiday waxa dhahday gabar maadoota ma ku baali kari in waqtiga gabar tahay waa lagu qaadanaa biri ilma dhale ma fiicno so at that time I got discouraged a bit but aba wuu fiicnaayo markaas he told me it's okay you can go ahead and I'll support you with the interest. Okay. Then markaas ay ka bacday school Nairobi aan tagay oo Soomaali iska leedahay. I asked them gabar ahaan hadaan malikubalan or that and they were like yeah we'll accept you. Well adi muddo waxa akhristay 2 sano iyo nus markaas ka bacday adi Amina Captain Amiin I needed help because markaas muddo oo hadaa iskuulka akhrisatay you still need training u baahan tahay maadaama aniga aanan awoodin maanta in dadkii aan ugu mahad celiyo waxyaalaha ay qabteen waxaan ka go'aansaday in si dadaba aan ugu maaragtay ugu gacan noqo dadka marka trainingka mesela marka aan sameynayno
oo aan cayaalka dugsiyaalka aan barayo baaladnimada wax lacag kama qaado. Kabtan Amiin oo ay dadka Soomaalida ee ku nool degmooyinka Afmadow iyo Doobley ku tilmaameen geesi ku dhiiraday furista garoomada macmalka ah ee labadaasi degmo ayaa sheegay in uu wado qorshe uu garoomo hor leh uga furayo jasiirado ku habboon dalxiiska. tan hadda aanu rajaynayno in aan ayadana aan guul ka gaari doonaa waxay tahay garoomo cusub iyo hadaf cusub oo aan goordhow bilaabi doono ay ka mid yihiin magaalooyinka Caluula sida oo kale Xafuun iyo Bandarbayla Hobyo oo aan inta ayaga aan ka damacsanahay magaalooyinka oo xeebta leh waxaan ka damacsanahay in loo tago dalxiis. goordhow waxaan ku hormari doonaa magaalada Hobyo ah oo aan rabno in aan ku bilaawno getaway holiday camal oo ugu talagalnay in dadka ka yimid qurbaha iyo magaalooyinka iyo maaragtay dariska ah iyo wadamooyinka dariska ah in ay u tagaan dalxiis. Xasan Sheekh Axmed Cadde, Somali Cable, garoonka diyaaradaha ee degmada Doobley.